بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناكسن داود يا صاحبيال meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada wararkeena qodobadan uu ku soo qaadi doono barnaamijkan hadii alla weyno uu qadaro waxa kamid ah macluumaadkii ugu dambeeyay kiiska duqeyntii lagu dilay Caaqil Cumar oo wiji lama filaan ay yeelatay dawladda Soomaaliyana lugaha la gashay haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee sargaal ka tirsan dawladda Soomaaliya oo kiiskan xog la yaab la ka bixiyay iyo Mareykanka oo si lama filaan u shaaciyay in xog qaldan inay heleen haddaba warar intaas ku aadanaya idin soo gudbin doona xogta cusub ee laga helay duqeyntii lagu beegsaday Caaqil Cumar Cabdullaahi waan idin soo gudbin doona qodobada kale waxa kamid ah macluumaadkii iyo wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo wacdara ka dhigay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay haddaba muxuu madaxweynuhu halkaas ka yiri waan idin soo gudbin doona soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad tahay nagu cusub nagu soo biir muuqaalka like saar artaada waa dhisaysan ugu reeb qaybta hoose faalada dadweynaha ku bilaawno wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa xog cusub oo ka soo kordhayso kiiska duqeyntii Caaqil Cumar lagu dilay oo macluumaad laga helay haddaba duqeyn cirka ah oo Mareykanku uu fuliyay oo waqooyiga Soomaaliya ka dhacday ayaa muran dhalisay sida wararkeena ku daawateen kadib markii dadka deegaanku ay sheegeen in lagu dilay caaqil aad looga yaqaan gobolka Sanaag halka mas'uuliyiin ka tirsan taliska Mareykanka ee Africomna iyo dawladda Soomaaliya ay u sheegeen BBC-da in weerarka lagu bartilmaameedsaday nin hubka al-shabaab markaasi ka ganacsada yaani inuu hub u kala iibiyo kooxda shabaab ka ganacsada haddaba weerarkan oo dhacay 13 September ayaa muran ka dhashay waxa uu markale muujiyay sida duqeymaha cirka ahi ay inta badan u reebaan hubanti la'aan ku aadan cidda lagu beegsanay yaani marka qaar waxa uu noqdaa weerarada kuwa aan la isku haleyn karin cidda la bartilmaameedsanayo hadii ay tahay cidda saxda ah loo la daliya taliska ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa xaqiijinay fuliyeen duqeyn toos ah maalintaasi iyaga oo sheegay kaliya bartilmaameedku inuu ahaa ganacsade hubka al-shabaab ka bayc mushtara magac kuma aysan xusan warbixintooda sida hore aad kaga bogoteenba dadka degmada Ceelbuur waxay ku tilmaameen ninka la dilay inuu ahaa Caaqil Cumar Cabdullaahi Cali caaqil caan ka ku ahaa xalinta khilaafaadka odayaasha bulshada ayaa cambaariyay weerarkan iyagoo ku tilmaamay weerar ka dhan ah dhaqankooda iyo sharafkooda haddaba BBC-du waxa ay shaacisay in mar labaad ay weydiisay Africom in ay cadeeyaan haddii qofka ay dileen uu ahaa Caaqil Cumar Cabdullaahi Cali taliska waxa uu ku jawaabay inaysan haynin faahfaahin dheeraad ah marka laga reebo in war-saxaafadeedka ay soo qoreen yaani war-saxaafadeedka ka soo saareen faahfaahin ka baxsan inaysan haynin sheegin taasoo cadeynayso cid ay bartilmaameedsadeen inaysan iyagu ogeyn oo loo malayn karo inay xog sirdoon oo qaldan inay heleen haddaba mar ay BBC-du weydiisay suuragalnimada in waxyeelo reeda ay jiraan oo Africom inay geysatay waxay sheegeen in dacwadaha kiisaska noocan ah ay si dhow loo eego iyadoo natiijooyinka ka soo baxana lagu daabaco warbixinta 3 biloodlaha ee Africom ay sii deyso balse kama aysan jawaabin inuu socdo baaritaan ku saabsan duqeynta sida gaarka ah caaqilka lagu dilay yaani marka hadalka aad fiiriso jawaabta Africom mar labaad ay bixisay shaki ayuu abuuraya haddaba nabadoon Xaaji Xuseen Yusuf Indere ama Indhadeero oo isna oday ka Ceelbuur waxa uu BBC-du sheegay in Cumar Cabdullaahi Cali uu ahaa caaqil la ixtiraamo oo door wanaagsan udub dhaxaadna ugu ahaa bulshada waxa uu sheegay inuusan ahayn nin ay ka muuqato arimo argagixisnimo balse waxa uu ahaa buu yiri nin ay ka muuqato mas'uuliyad waxa lagu eedeynayana wax laga xumaado ayuu ku tilmaamay haddaba mas'uul ka tirsan arrintan arbaa in isla fahamno BBC-du waxay daabacday in mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la shaacin in BBC-du uu sheegay in bartilmaameedyada la bartilmaameedsaday ee Soomaaliya Mareykanku inuu ahaa mid laga fikiray runtiina ragga qorshaha bartilmaameedkuna inuu ahaa Caaqil Cumar Cabdullaahi isagoo mas'uulkaasi ku sufeeyay horjooga sare oo u fududeeya argagixisada gobolka dambiyada abaabulan kaasi oo hubsiin jiray al-shabaab iyo ISIS isla markaasina sirdoonka Soomaaliya uu helay xiriir uu caaqil kula lahaa kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalatay Yemen arintu wajigan cusub ayay yeelatay marka warka waa cad yahay mas'uulku waxa uu sheegay in weerarkaasi si qorsheysan loo fuliyay iyadoo la beegsaday kormeer muddo la waday isla markaasina aanay waxyeelo ka soo gaarin dad rayada
dowladda federaalka weli bayaan rasmi ah kama aysan soo saarin arrintan laakiin mas-uulkan oo BBC du laftirkeedu ka diiday inuu la xigto magaciisa iyo darajadiisa ayaa sidaas yidhi haddaba al-shabaab ayaa beeniyey dhinacooda in cumar cabdullaahi cali uu xubin ka tirsan kooxda uu ahaa sheegashooyinka iska soo horjeeday Africom iyo dowladda Soomaaliya kooxda shabaab iyo bulshada deegaanka ayaa abuuray su'aalo had iyo jeer u baahan jawaabtooda in la helo waxaan ay ku soo ururtay marka dib loo akhriyay fariimaha isdhaafsan ee dhinacyada ka soo baxay sida kooxda shabaab fariinta ay soo saareen midda Africom ka timaaday iyo midda Mareykanka ka timaaday oo jawaab way waxa ay cadeynaysaa in weerarkan uusan lahayn cadeyn rasmi ah cid bartilmaameed ku yahay hadaba ilaa hadda sanadka 2025 Africom waxa ay warsaxaabadeed ay soo saartay 5 iyo 50 duqeen oo ay ka fulisay 1 iyo 30 goobood oo markaasi kamid ah Soomaaliya waxa lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan Daesh iyo Al-Shabaab bulshada gobolka Sanaag ayaa isweydiinaya dhabahaanshaha sababta ka dambaysa dilka caaqil Umar Cabdullaahi Cali ilaa iyo haddana cadeyn dheeraad ah oo la xiriirta kiiskan lama helin dowladda iyo Africom si rasmi ah uma aysan xaqiijin magaca bartilmaameedka iyo duqeyntu waxa ay markaasi ku soo ururtaba haddaba warbixintan marka aad daawatay adiga laftirkaaga markaad isku cabirto angalada aan warbixintu ka fiirinay iyo sidoo kale xogaha la qoray ilaa iyo hadda kiiska miyuu dowladda Soomaaliya lagu halagalayaa caaqilka eeda loo jeedinayo sida shacabka deegaanku isaga fogeynaa qaybta dambe ee waraysigeena ama barnaamijkeena waxaan idin kula wadaagi doonaa ehelka caaqilka iyo arintan waxay ka aaminsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan kaga sii gudbo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ka qayb galayaa kulanka golaha guud ee qaramada midoobay halkaas khudbad ayuu ka jeediyay waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka waxa uu dul istaagay arrimaha ka mid yihiin xaaladda Falastiin dowladaha aqoonsanayo iyo sidoo kale arrimo badan ayuu ka hadlay dhinaca Soomaaliya horumarka amni iyo sidoo kale dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada ayuu dul istaagay sida Buuraha Al-Miskaad Daeshta dowladda Soomaaliya Puntland ee guulaha ay ka gaareen iyo arrimo kale ayuu ka hadlay marka madaxweynaha khudbadiisa intaas ugu muhiimsaneed sababtoo asicidani baa ka dambeeyay mana ka soo hadlin waraaqda ay soo saartay oo la leeyahay Mareykan baa soo saarayna magaciisana kuma xusna wax lagu dilana meesha yaalay ma jirin ba anagu waxa haysanaa Puntland ilaa hadda wixii dhacayna inaan ka soo hadlin dalkii ay maamulayeen oo dhaxayeen anaga mas'uulka ka ahaa wixii ka dhacay kama soo hadlin dilkii qaabka uu dhacay kama soo hadlin sababtoo ah isku waa jawaab ilaa hadda waxay u aaminsan yihiin dhibta xaq darrada ah uuna dulmi waxba ku lahayn ee ayaga geysteen uuna dhibna geysan aabahay nin samataliisuha nin nabadoon u ah anoo aashaadiyo Umar Cabdullaahi Cabdi Ibraahin waxa rabaa inaan ka hadlo caaqil Umar Cabdullaahi Cabdi Ibraahin oo aabahay 13 bisha dilkii foosho xumaa oo loogu geystay deegaanka u dhaxeeya baran iyo ceelbu asagoo labadii duhurnimo ka soo baxay gurigiisa ceelbu oo labaad oo halka ku yaalay una sii socday gurigiisa kale oo baran ku yaala usoo labadii duhurnimo kaligiisa oo hooyo la soo hadlay oo halka ay casho igu talagal oo cidna la socon markii hore lagu eedeeyay in cid la socotay laakiin kaligiisa uu ahaa deegaankaas aabahay duqeynta foosho xun loogu geystayna waa deegaan ka tirsan gobolka Puntland waxa jooga oo maamulana Puntland bay kamid tahay dilka foosho xun oo aabahay loo geystay oo nin samatalisa oo nabadoon ah oo xumaan fal ku lahayn oo dib ka shaqeyn jirin anagu waxa haysanaa Puntland dawladdaas waayo dalka waxa maamusha dawladda Puntland asaguna wuxuu ahaa shakhsi kamida reer Puntland qof ka dirsan Puntland asagoona wax sax ah laga hayn looma geysan karo xasuuq khalada taasna waxa wadan leeyahay iyadoo dhowr mar oo kala duwan dawladda Puntland baaq loo diray ilaa haddana ayna ka soo jawaabin halkaas waxa noogu cad inay dilkaas aabahay caaqil Umar Cabdullaahi Cabdi Ibraahin ay ka dambeysay Puntland sababtoo asicidani baa ka dambeeyay mana ka soo hadlin waayo qofkuna wuxuu ahaa qof Puntland ka dirsan dalkana Puntland baa maamuleysay dhibtana ayaga loo gudbiyay ilaa haddana jawaabka ma soo bixin waraaqda ay soo saartay oo la leeyahay Mareykan baa soo saarayna magaciisana kuma xusna wax lagu dilana meesha yaalay ma jirin ba
marka annaga Puntland haday jawaab sax soo bixin weydo deegaanka maadaama waxay u maamushay nabadiisa inay sugto wixii ka dhacayna ayagu inay ka jawaabto sax iyo khaladba ilaa hadda wixii dhacayna inayna ka soo hadlin dalkii ay maamulayeen oo dhaxayeen anaga mas'uulka ka ah wixii ka dhacay kama soo hadlin dilkii qaabka uu dhacay kama soo hadlin marka dagaalkaas aabahay loo geystay xasuuqaas ba'ana waxa ka dambeysay Puntland sababtoo ah isku waa jawaab ilaa hadda waxay u aaminsan yihiin dibta xaq darrada ah uuna dulmi waxba ku lahayn ee ayaga geysteen uuna dibna geysan aabahay nisam talisuha nina wadoon u ha habeen dib geysan diyaarad iska wareegaysa asagoo kaligiisa oona askar la socon oona dhuumanayn oo gaari wata oo si bareero cad u socda uma soo bixeen gurigiisa labaad aan horay baa leeyno kuwa dhaqmay maanta ma jeesanayna Allahu akbar miyaan ka yeelaa caaqil la dilo ugu horeyn ismada waxa leenahay go'aanka degdega ah hadii soo gaarin hebel baa maqan kana jira kana meel maqan waligu waa dhihi jirteen filmadiini weeye gobolka soo tagaya caaqilada madaafiicda la dhaco in sundaalada la laayo in dalka la qabsado inaanu qaxno adeer waanu fahanay ingiriis baan rari waayay لو دايره ما خرو ان كعنو عندك دفاعنا اسم يا سودان يا سركال هرقله والله بلا ثلاثه لو دافيساي iyo dahabka noo yaala anaga hantida ilaahayna siiyay nagu beeray hadaadan ka bixin talaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa ma yeelayno anaga baxdo waxa weeyaan lacagta aad qaadatayna aday ku taala adiga anagu dalkayga waanu difaacanaynaa laba jirka caruurta dumarka isimada kuwa askarta kuwa ah mid walba diyaar buu u yahay dalkiisa inuu difaacdo waanuna ilaashana maalka yaga maanta isugu kaaya keenay anagoo ah gabdhihii reer maakhir ee reer sanaag ee warsangeli halka waxa isugu kaaya keenay maanta dhiilada ka taagan sanaag ee lagu diray caaqilka yagii sharafta badnaa ee magaca iyo miisaanka weynaa maxaan raahday waanu ka xunnahay aad iyo aad baan uga tiiraanyoonayna waxaanuna leenahay taasi baanu u diraynaa naftayadaanu u diraynaa ehelkii baanu u diraynaa reer sanaag baanu u diraynaa waxaanu u diraynaa Soomaaliya oo dhan baanu u diraynaa si foolxun baa loo diray waxa loo dilay si foolxun oo aan maxaan idhaahdaa caalamka lagu arag oo aan Soomaaliya oo waligeed diyaarada lagu duqayn baa diyaarada sanaag lagu duqeeyay kama dulqaadanayno oo ma yeelayno marka hore waan u tacsiyadaynayaa tacsiyada waxaan u dirayaa dadkayga dhamaantood waan u dirayaa marka xigana waxaan leeyahay kama yeelayno waxaanu arkaynay maanta waraaqo soconaya Facebook oo la leeyahay Mareykan baa dilay waxaas kama dulqaadanayno hadduu Mareykan dilay iyo haddii Imaaraad dilay annaga dani baanu haysanaa dani baa keenay Imaaraad dani baa keenay Mareykan cid kale aanu u haysanaa caaqilkayga sharafta badan ma laha waa la gubay oo si xun baa loo gubay oo waxa loo gubay si qayral xada baa loo gubay oo waa la cadaabay ifka lagu cadaabay ilaahay waxaanu uga baryeynaa ifka lagu cadaabay inuu cadaabku u dani cadaabay in imxaan ilaahay janna ilaahay horta isaga ugu bedelo aamiin dhahaya aamiin ilaahay jannaha ugu bedelo waanu ka xunnahay adeerkayuu ahaa wuxuu ahaa caaqilkayagii wuxuu ahaa caaqilkii reer sanaag oo dhan caaqilkii Soomaaliyeed buu ahaa waxa weeyaan wuxuu ahaa nin isina nin samawada ah nin maxaan ilaahdaaye waligiiba aan khayr mooyaane wuxuu ka shaqayn buu ahaa waxaanu leenahay inta haddaan kaga baxo ninka dani la yiraahdo waxaan leenahay dani isaga argagixisaa waxa weeyaan dani falka xun uu dadkayga kula dhacayo oo doonayo inuu dalkayga iibsado oo Imaaraad ka iibiyo oo lacagta ka shubtay dani horta ku suurtageli mayso lacag baad qaadatay lacagta aad qaadatay maalkayga ku socotid waanu ilaashanaa mid walba ilaahay baana nagu garab gelaya hadaa diyaarada soo kaxaysato iyo hadaa dabaabaad soo kaxaysato midna wax naga qaadimaysid dinayo waxaan kala ku sheegayaa waxa jirtay inaadan garoowe dhaafin oo saa ugu dul wareegto garoowe oo garoowe aan ku saa ugu meeraysato waxa ku baneeyay Boosaaso waa warsangeli
warsangali baa ku dhamaaday laba walaala abaa lagu dilay maxaan idhahdaa waxa lagu dilay hadeeray saraakiisheedii baa naafa hadeeray maxaan idhahdaa kuwa dhaawac yihiin hadeeray kuwa nooga dhinteen saraawiishayadii qaaliga ahayd kama samri karno waxaanan ka kala ka samri karayn isinkayaga kama samrayno kana dul qaadan meeyno mana yeelayno fallaari gilgilasho kaaga ma hadho fallaari gilgilasho kaaga ma hadho ama Mareykan baa duqeeyay dheh ama Imaaraad baa duqeeyay dheh adiga baa amarka bixiyay adiga iyo in kula midabaana u maqan una ooyimayna caaqilkayagii sharafta badnaa waa u aaraynaa waxaan leeyahay dani garow waa taagnaan jirtay aadan ku dhici jirin Boosaaso inaad tagto annaga ku xoreyno saraakiishayadii ku dhamaatay markaas noogu abaalgudayna caaqilladayadii iyo dadkayaga magaca leh aad duqayso ballan baanu ku qaadnay daniyow inaad eedo hawlaha aad ku jirto haddaadan faraha nagala bixin dalkayaga iyo habka noo yaala annaga hantida Ilaahayna siiyay nagu beeray haddaadan ka bixin talaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa annaga wana lagu soo duulay dalkayga waa lagu soo duulay dani baa ku soo duulay iyo Puntland Imaaraadka iyo Mareykanku dani baa wata Mareykanka la leeyahay iyaga sheegtay dilka caaqilka waa riwaayad la isu sheegay annaga ma aqbalayno federaalkuna wadankayga ma joogo Soomaali waa ogtay federaalka iyo Puntland waxa dhex maray inay kala xariman yihiin waa looyahay federaalka aan imaan ee Puntland laga xarimay ee intii uu yimi xasan soo noqday iyo xamsa yimaada ka xarimnaa ayaa gobolka Sanaag yimi oo dilka geystay oo ma aqbalayno oo gantaal dad ku dilay maya waxna la ka dhaadhicin maaha hawsha waxa dhameeyay oo ka dambeeya oo soo abaabulay waa Puntland iyo dani waan ognahay iyo madaxweynayaasha ka hor inay deymaysan yihiin inay calmada u iibsadeen inay Imaaraadku lacagtii u haysto inuu ku yiri waxa calmada markii lagu yiri ama lacagtii ama dhulkii keenay markuu Imaaraadku yiri waan ognahay inuu ku yiri maleeshiyaad baa meesha lahaa hubaysan annaga sidii Yaman baa la rabaa in la laayo Ingiriis baan rari waayay kama guurno Ilaahay baa nagu abuuray kuna waan ka dhaxalnay calmadow Mareykan iyo Imaaraad rari maayo waa degnaanaynaa waan ku dhamaan intuu naga nooliyayna xaraam bi ka tahay walla iyo billahi talaydi ka tahay waan ku dhamaanaynaa waxaas waxa weeyaan baqdi la gelinayo warsangeli sas la gelinayo warsangeli inay cararaan in la yiraahdo maxaan ku raadayay waa dadkii baa la laayay waxa leenahay warsangeli calmado ku soo baxa wad ku dhamaateen wad ku naafowdeen wad ku baabacdeen waa ku dhaqaalo burburteen agoomihiina meel walba buuxa saadu nin leeyahay saadu maxaan ku raadayay difaacayseen dhulkeena inoo baahan dhulkeena diin adduunku isku haysto maxaan ku raadayay Imaaraadka iyo Mareykanka iyo dani isku haystaan ee la iibsaday ayaa inoo baahan isaga difaac nooga baahan annagana le dahabka iyo macdanka Ilaahay baa nagu abuuray adigana kugu abuuray kharfaha lama deegaanka annagana Ilaahay baa calmado iyo lasqarina waa abuuray waana ku dhamaanaynaa dalka anaga waxaan la ka wadiinayaa bari isaa dambe mustaqbalka soo socda isin iyo sarkaal horgala يا هذا إسني سركال هرجلا والله بالله طلع يعني وحول ودينا والله هذا ردافي سنيو يا قال كديل باليري قص نسي ما تحركي قرال كسر بحي فيسبوك ملاك وأركي من أركي وبريك وحشية هذا مد بدي شيء فضلها كالصوماليا فضلها قبل السناق وركموج حاكموجا مسلم ماذا قبل السناقنا بطلع مضوش بطلع مكان مسؤولة مرة إنسان كنا نوضون كان يلاقي نحرسنا كورابية وحلود لي شغال بالود لي هذا الدنيا بودين أنا مريكان يبادلي وحس صعب يصاي لو دايرة ذا ما خرج أنتعنو أندروك دفاعنو إسني السودان يسركال هرجلا والله بلا تلا ودافع ساي يا أنا ثاني مرة سبحان الله أرسميه والله بلا تلا وحيد دارن إيش وحيد دارن قريب على بحية برا بلا تجي برا تيجي مغنايو سناق وصوح علينا يا بريبا برا صوب حيا قبله كسوة شيء ورسنجلي هايلان يا سناق وحن رمنا شعور تيضا موجنو مركورة تعصب عن الدرينا إن الله وإن الله راجعون بان لنا هاي عاقل كيجي وحوي يمحيه تلقوا دقي شيعيو دلك الديار ده اللي أديك سيدي فلك حفاش حنا القرار رقمي وحن لنا هاي وحن ليا هذا كبدين معي وحن ليا دنيو فلا رجل جلشوا كاجا ما هدو
waxa waraqahaad maanta soo qorayso aad leedahay imaaraad baa duqeeyay adeer cadaynteedii baan rabnaa maraykan baa duqeeyay cadaynteedii baan rabnaa warsagalna waa soo jeeda maanta waa kacay waxa weeye sida aan u kacno dareenkayga ugu muujinay maanu dalkayga u difaacanayna mana soconayso yaan dhagaha la idinku ridin dhalinyarada warsangeli iyo hablaha warsangeli arintaas yaan ma dhalinyarada dhagaha la idinku ridin xaq balinina jihaad baynu ku jirnaa xaqeeni baynu raasanaynaa waxaan horay baa leeyno kuwa dhaqmay maanta ma jeesanayna Allahu akbar miyaan ka yeelaa caaqil la dilo ugu ma horeyn qarax leeyno dhigana ugu ma horeyn baan uga xunnahay dadka eegi waxaan u direynaa tacsi waxaan u leenahay mudaharaadka aad qaadeen ma joojin kartaan dalkeena lagu soo duulay deegaankeena lagu soo duulay dahabkeena lagu soo duulay Soomaalida waxay ku maahmaahdaa hiba ilaahay ku siiyay habeen la iskama qaado daniyo waxa aadan lahayn ha u dudin dadka ha ku layn jooji waxaad wadid daniyo saasaan leenahay waxaan hadalka ka hadlayaa wax loo yahay lasma sheego weeye hawshii dhacday noodoonka Cumar Cabdilaahi baan ka hadlaynaa hadal banahan bulsho waxaan leenahay madaxweyne Dani Saciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha dowladda Puntland oo horeeyo oo ku xigo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland noo haya ama loogu magacaaban iyo dhammaan saraakiisha gobolka oo meelaha kala joogaanba waxaan u sheegaynaa ninka ay u shaqeynayaan in noo keenaan sida sharciga ay mariyaan ay keenaan meesha uu isinka ugu beegsaday iyo wuxuu ka rabay isaga laga rabaa waxaan u sheegaynaa Dani wixii uu sameeyay ama gobolka ku sameeyay waa isaga dushiisa noqonaysa dawladuna saa ku sii jirimayso waxa anaga meesha nagu jiga waa magacayaalo sagaalka xildhibaan oo gudoomiyaha baarlamaanka u horeeyo Dani isaga geystay anigu ma aan geysan wasiirada sportka soo geystay wasiirka caafimaadka soo geystay saraakiisha qasqas iyo buuq ku wada inuu bedesho isagu kansado waxaan hadda Dani u sheegaynaa xildhibaanada adaa keensaday oo Dani looma keenin ismada adaa ka boobay waagi waxa ogtahay ku sheegaa way adaa keensaday waxaan ku sheegaynaa waxaan ognahay way waxaagu ila xoog iyo jujuub awadid waxaan idin sheegaynaa mar walba gobolka ila filaan ka qaadid ciidamada Puntland ku jooga baran oo aad keentay kama bixi karaan waxaan u sheegayaa reer Midigale iyo reer Cawsane inaad jidka goysaan aqbalaha soo socda bishii wixii bishii ka dambeeya saraakiisha gobolka haddii gobolka saraakiishu raacsan yihiin sarkaalka hadda soo gala waa sarkaal dadka qoseeya laakiin dhalinyarada reer Cawsane ee highwayga degan ee Midigale degan waxa uu sheegayaa ina uriya bahda iyo tolkay ina wadada jartaan Midigale iyo Cawsane labadaas ina wadooyinka jartaan oo yaasha ismada ah ee gobol jooga ee kutaanta wada ee hadalka wada annaga waxaan rogay run baa inii sheegnaa ismo imaamadda la rogtay weedinka meel walba way soo taagaysaa waxaad anaga ka masuula hadhow idinka duqa wada gobolka wuxuu u baahan yahay dhalinyaro lodkeega ah iyo lodka ka sii weyn oo dhiig leh waxaan u sheegaynaa gobolka wixii lagu waday waa laga deeliyaa ciidamada uu dalkeysada hadeerna Cawsane iyo Midigale labadaba ma dhaaf karaan waa xidhaysan sarkaalkana hadda soo galina gobolkan soo galin iyo ciidanka hadda soo galina gobolka kaba mid maaha la soo gali karaan waxaan u sheegaynaa magaalooyinka mar labaad iyo mar saddexaad u bagaadayna in magaalooyinka xidhaan oo ay u sheegaan ninka soo dhaafaya sarkaal Puntland gudoomiyaha gobolka Sanaag wuxuu ka mid yahay ama xil haya dib loo ma noqon karaan haweenka soo bixi karaan baran waa ku go'doomayaan Cawsane Midigale rab waxa waa xidhaysan aad iyo aad idinka madaxda nooca dhalinyarada idinka hormuud ah reer Midigale reer Cawsane oo highwayga baatiin marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan sheegnaa ila shucuurtiina muujisaan aad iyo aad baa gobolku u mahadsan yahay shucuurtuna waa soconaysaa magaalooyinka kalena waxa sheegaya ceelbu xingalool damaraha gare armale iyo dhahar dhamaan gobolada kale laga wado buuqa yaan la joojin hadaa diidaan fiita power waxaan sheegnaa fiita power bal isticmaalaya ismada hadda isku tagay ka daaya gobolka waxa ku wadaan adeerayaal ka daaya waxa ku wadaan inda la'aanta ka daaya gobolka dhalinyarada waxa sheegaya ina dhalinyarada isdhiiri gelisaan kuwa jooga ee boran wixii ka dambeeya saadambe hadaa ismada hadal ka weydaan waa gelisaan gawaarida waxaana u qabanaysaan xabad ma u qabanaysaan waxaan u sheegaynaa ina la qabanayo dadina uu ku dambeeyo
ciidamada buuraha saaran ee gobolka Sanaagna si degdeg ah u soo degayaan ninkii dhiigle waa garanaya iska soo degaya laakiin gobolkayaga nin lagu haysta iyo nin lagu haysta iska daayo wixii yimaada مسؤول بالغ نقول وحي كدنبيا دينا انتي هوله دي وحيسي هوله دي حاضر يدب لو ما راعو وحي تقدب لو ما راعو لeenahay daniyo dib ku fahanay intaasna jazakallahu ma khayr wax ka badan baa soo waday laakiin waxa ku sheegaynaa gobolka inaan gacan ka qabanayno gobolka dhalinyarada u talanaysa wixii dambe aad iyo aad u mahadsan gobolada ay ka soo degaan waxa u sheegaynaa dani gobolka waxa ku waday waa laqday dib u laqaysa aad iyo aad bay mar labaad iyo mar saddexaad ba dadku reer gobolka Sanaag anigu inaad ka hadlo ma ka maqnay laakiin inaad hadii ku jooga aad